waxaa hortayda lagu dilay oo aan ku waayay dad aan shaqo wadaag ahayn oo walaalo ahayn. waxaa garabkayga ka muuqdo wiil dhalinyaro Soomaaliya 3 habeen ka hor ayaa dukaan uu ka shaqeynayay waxaa lagu dilay 2 dhalinyaro ah oo shaqo wadaag ahaayeen. waxaan wax ka weydiiyay xaaladda sida ay ahayd iyo markii dhalinyaradii ay wada shaqeynayeen la dilay jawiga sida uu ahaa. walaalkaash waan dhawahay alxamdulillah ilaaha maad iskale marka hore kaasoo ii sheeg maxaan lahaayay naga dhigay dad muslim ah. waxaad celin kadib ni horta meesha waxaan ka wada shaqeynaynay wiilka la dilay iyo odayga iyo wiil kale oo banaanka taagnaa oo asina dukaanka sheer ku lahaa. marka niyow ii sheegaaday tuugada horta habeenadan waa shaki aan ugu jiray oo dad oo qolo diriskeena loo galayay ayadoo saas ay tahay wixii dadaal iyo wixii ii sheeg nooma yareen. marka niyow tuugadana waxaa way tuugo oo xaafadda ku cusub ay ahaayeen oo saas ay tahay information haystaan oo wax kastaba la soo siiyay. imisaasa ay idin soo galeen niyow tuugada horta waxay na soo gashay around 1 saac ii sheeg maxaan lahaayay rubiyo kale habeennimo. marka intaysan na soo galin ka hor waxaa noo imaaday 2 qof hoos la socoto. markay noo imaadeen waa ka shakinay waxaa tiilka ku jiray ama kaashirka ku jiray odayga la dilaya kaashirka ku jiray. marka dadku waxay gadanayeen alaab oo maacuun iyo digsi iyo waxaas ay naga gateen. marka saas ay tahayna waxa dadku waa ka shakinay waliba odayga oo tiilka ku jira dhahay ama kaashirka ku jiray dadkan way cusub yihiin waxa alaab ay gadinayeen xaafadda ay soo degaan oo maleena. marka anaga meesha isku sheegnay oo aan wax yar ii sheeg maxaan lahayay aan ku kaftanay oo dadkiina sidii wax ku gadanayeen. marka laakiin shakigaas uu nagu jiray ayadoo saas ay tahay alaabtii markay dhameysteen haddana dib ay dukaankii u laabteen. marka adii ii sheeg dad oo waxay ahaayeen information iyo gudbinayo saa anaga isdhahnay. marka at the same time markay ayaga bixeen oo alaabtii naga gateen waxaa si ii sheeg maxaan lahayay lama filaana meesha u soo maray gaarigaas oo saarnaa 1 qof. markii hore wuuna dhaafay ii sheeg maxaan lahayay markuuna dhaafay wax yar oo istaagay I don't know markii inay gadaal dad u saarnaayeen. markaas adii markuu socday cabaar socdo soo kala fareeyay I don't know markii dad uu soo dejiyaa u maleena uu soo laabtay. markuu soo laabtay dukaanka hortiisu soo istaagay gaarigii uu baakin geliyay wuuna dansaday. markay wiilka oo ii sheeg banaanka joogo dukaanka sheerka la Ibrahim Salaad ay dhaana banaanka joogay asigii yaa dhahay markay ii sheeg maxaa la wiil baag wato meesha ku jiro i weydiiyay war ninkan ma taqaaniin u dhahay dawaashikiyo gaari anta la soo istaajiyay ii sheeg ninkan ma taqaaniin. marka nin kasta mu ahaa ani waa ka saayay. marka ani waxaan dhahay ninka waa aqaana ninkan nin dib geysana ma waxa uu yahay customka ilaa dad kala meesha ku jiro oo street u soo galo dukaanka waxa 4 koona ka soo galay. marka anaga waxa shakiga uu nagu jiraa dukaankiina waa lagu jiraa mana ogin in lagu jiro dukaanka. wax yar kadibna wiilka banaanku taagna odayna salaad uu ku maqnaa. marka hore ninka banaanka taagana soo dugtay kadib cunug yara ii sheeg maxaan lahaayay oo la dili doono salaad markuu soo dugtay odaygu soo bedelay. odayga markuu soo bedelay odayga salaad uu ku maqnaa ani weysa ay dhoorneed waliina ma dukanin aan odaygan sugaayay. marka odayga salaad uu aaday ninkan oo ii sheeg maxaan lahaayay wax dili doono marka kiyugu soo galay ama leenka ama safku soo galay. safkan markuu soo galay meesha maqrib aheedo dad badan wax ka gadanayeen kastan badan joogay. marka qofka shanaad qofka afraad uu ahaa safka soo ku jira ani marka macnaha safka ku jiritaankeedii mar hore ma u jeedin gadaal leen ka arkay inuu safka ku jiro markuu asi cunuga shood gareynayay. marka maaskarna uu ma jirina qoorta ugu jirtay. marka ani arkay markuu baasha la soo baxay cunuga dhufanay isku maray noqotay. marka dhalinyaradan la dilay mid wuxuu ku jiray maqalka lacagta lagu maqalku ku jiray ada xagga joogto waqtiga ayada ani waxaan joogay dhinacaas kale waxaan joogay ii sheeg maxaan lahaay fridge oo yani dukaankaasi 3 qayb waaye. qayb waa shelfiska caadi oo sokorta iyo burka iyo meesha ii sheeg maxaan lahaay jumlada loo gado ay rasada saaran yihiin waay. qaybna cosmetics ka waay. qaybna waxa ii sheeg maxaan lahaay tafaariiqdii ayadana oo badeecadii kala waay. marka ani qaybta badeecadan taagnaayo fridge-kana ku aadan marka meeshii customkiya ii sheeg meesha ka ilaalinayay
odigana waan sugayay si aan u bedelo aan usoo dugto salaad aan usoo dugto marka nimanka markay soo galeen marka ma dad badan ay ku soo galeen mise 2 qof 3 qof wallaahi dukaanka horta ii sheeg waxa lagu soo galay 3 oo ii sheeg street ku imaaday soo wiilka ii sheeg maxaa lahaay noo soo sheegay ani gudahan ku jiray ma u jeedin markay soo galayeen wiilkaana dhahay dukaanka waa la soo galay walagu jira maya wiilka banaanka taagan banaanka markuu wuxuu taagan yahay amniga iyo wixii baxaayo oo alaabo meesha laga qaado oo u sheegaya ninka teelku ku jiro alaabta ma qaaday kana baxay si markii wixii connectionkii uu ficnaado adiga iyo yarka la dilayna dukaanka ku jirtaan asna maqalku ku jira adna qaybta kale ku jirtay ani meeshii dukaanka ani waxaan ku jirnay wiilka la dilaayo odayga gadaal uu jiray ninkana banaanku joogay tuugadii way soo gashay marka ninka cunuga shoot gareynaya kan afraad kan shanaad ahaa marka ma wax buu ka gatay oo markuu xalka uu shoot gareey misana banaanka kor ka shoot gareey maya waxba kama gadanin because of waxa dadaab u dhaxeeyay ma bala gaarin baasi ma fahanteen marka ninkan baashi wali waxa ugu jirtay dhankan oo ii sheeg gacanta bidxeeda ugu jirtay kilidan baashi uu la soo baxay marka hore uu soo diyaarsaday isla markii cunugu toogtay cunugan waxa ugu dhacday ii sheeg maxaa lahaay naaska midgeeda ugu dhacday ani midig naaska midiga ugu dhacday ani markaas aad igu dambeysay xagee gashay marka adiga ani niyo alxamdulillah ilaaha iwaafijiyay oo waxaan galay meel ii sheeg malaay iyo saliidi oo meesh ku rasteysana isla markii isla dukaanka dhexdiisii meeshii aan isku tuuray marka meeshii markaan isku tuuray xabada dhacay customkiya qaylinay marka jaaniskaasaan ilaahay marka waxa qalbigay ku soo riday alaabtan isku soo daaday alaabtaan isku soo daadiyay marka alaabtii markaan isku soo daadiyay at the same time waxa way odayga la soo qabtay odaygana wuxuu ku jiray gadaal ku jiray wuu dukanayay marka xabada markuu maqlay uu soo baxay markii xabada dhiciisa dhaxdu ka soo socday waa fahmi waani ma fahantay isla odayga soo qabteen odayga markay soo qabteen odayga meeshii lagu jir dilay oo la garaacay soo ashaadaan wax kasta waa maqlaaya asoo ii sheeg maxaa lahaay la garaacayo shahaadanayo oo dhahay ii sheeg maxaa lahaay ani waxa ogaay malaan waliba me waxay ka shakiyeen meel noo xirneedo xafaayad iyo wixii markaas alaab oo iska qashin oo meesha ku jireen oo waxba ku jirnay u maleynaa inay lacag ku jiraan marka taasa odayga inta badan oo culayska loo saaray saas ahayd waxa la ni wiilkii kala aawe kii ii sheeg way small boy ay dhahayeen adiga kugu wadaan ana igu wadaan adna wad maqlaysaa I don't know marka macnaa in information ka mar hore la soo siiyaa u maleynaa dadkaas dad ani isna qaana ma ahan marka small boy awa like way that black boy ana igu wadaan ma fahantay marka anna ilaahaba ma ii soo qorno meesheedii aan ku jiray marka odayga ma ka war hayo dhaay odaygan ani war ima haynin ina ani banaanka ku maqanay in dukaan ku jira asi war ma ka haynin adi marka waad arkaysaa tuugada iyo waxa ay sameeyaan ani waan arkayaa meel buuq yara ay banaan oo isha ka dhiiban haya laakiin horta ii sheeg qadartan way qoranta ani caawaan walaanaysa ma bis dhehaynin waxaan isdhahay kaliya xabad way ka soo daahe ama ii sheeg maxaa lahaay hadda lagu dhufan doona marka dareenkaada sidoo noqday dhalinyartii aad isla shaqeyn jirteen waqti badan soo wada qaadateen hal meel ku wada cunayseen oo hortaada lagu dilayo waa arin runtii aad u naxdin badan marka dareenkaaga sidoo waqtiga ayada wallaahi ni walaal ani dareenkayga lama soo koobi karo gaasoo waxa way tol hadii la dhaho isku guud waxaan wadaagnaa magaca guud aan wadaagnaa raxweynta inta kale ii sheeg maxaa lahaay dad walaalo muslimiin ahayn ma fahantay marka asxaabna waxa kugu filan walaal ma ahane waxa kugu filan inta adi oo isla joogteen oo ii sheeg maxaa lahaay isla ceeshaysan intaasaaba la soo koobi karin walaal maxaa dhacay markii labada nin la dilay tuugadii dukaanka maxay ka qaateen niyow tuugadii dukaanka ii sheeg maxaa lahaayay waxay ka qaateen lacag oo sarif ahaa oo meesha ku jirtay ii sheeg maxaa lahaayay waxay kala qaateen oo ii sheeg maxaa lahaayay ay meesha kala bixeen wax yar oo sigaar saas u badan ma ahayn wax luusay qaateen saa u maleynaayo laakiin sigaarkii kale wuu yaalay sigaarkii kale meesha ku jiray marka inta badan lacagtii galabtii la shaqeeyay lama toosinin habeenkii waxa toosin jiray wiilkan oo ii sheeg isku aadin jiray oo lacagta xisaabta dukaanka u hayay Ibrahim Salaadkan marka lacagtii habeenkii la toosin lahaa waa tii la qaatay marka lacag adii waa haday ii sheeg hani aan qiyaaso 7,000 meelaas way qaateen oo lacagta wadanka markii wiilkii Firimbi community meeshu ka helay ma ogi Firimbi uu yeeriyay anoo la igu raad joogo oo la ii raadinaa Firimbi yeeriyay yarkii asagana badbaaday yarkii badbaaday banaanka u baxay hagaag Firimbi yeeriyay hagaag Firimbigi ilaaha soo dhawaajiyo waxa waa ii sheeg anoo la igu raad joogo
marka dadkan community ay ka carareen marka sidii community dadkii xaafadda ay dukaanka soo buuxiyay marka sidii aan ku badbaaday alxamdulillah dhalinyartan la dilay ilaahay ha u naxariistay ma dukaankay ku nafbaxeen mise dhaawacana loo qaaday niyow walaal ii sheeg maxaan lahaay dukaanka ma ku nafbixin laakiin dad isbitaal gaari kara ma ahayn sidii ani markaas ila muuqatay dad xitaa oo markaas kula hadli karo ama gacanta dhaqaajin kara ma ahayn naf dheer ku jirtay oo meel dheer ah wiilkan markii hore xabaday ku dhufteen oo naasku ugu dhufteen midgeed markay gudaha u galeen xabaday lugta ugu dhufteen laba xabbi iyo meelahaas ay lugta ugu dhufteen dadka xaafadda idin la degan iyo laamaha amniga maxaad garab ka hesheen ama gurmada nii horta dadka xaafadda nala degan waxaa gurmadoo ka helnay odayaalka community-ga ayaa waxaan ka helnay dukaanka ii soo galeen oo ninkan markii oo dhaawac uu qaadayay wiilka kale gaariga asaa waday ayagaa dukaanka ila joogay ayagiyaa booliiskii noo wacay marka group oo Soomaalida ku wada jirto waxaa jiro oo wixii information la soo gudbiyo ani groupkiyan isla markii cod dhigayo ani wiilkii kale oo qaylisanay gargaarana soo gaaray laakiin community-ga waxay naga caawiyeen in dukaankaasi boob lagu sameeyno ay dadkii naga dhiciyaan oo gudaha ugu muhiimsan oo odayaasha gudaha noo soo galaan marka adiga sidad banaanka ugu soo baxday sidad ku ogaad inay nimanka baxaan ani niyow ii sheeg nimanka markay baxayeen firimbiga yeeraay ma maqlaynin laakiin firimbiga waxay ku baxeen waay laakiin ani firimbiga ma maqlin attention kala ii taagnaa markay baxeen odayaashii community galay oo dukaankii soo galeen small boy come out marka ani waxaan isdhahay codkay ku bedeshteen dadkan lama tuugidii cod ku bedelatay lama fahmi karo marka markii tuu ay sheeg maxaa la community-ga ay raadiyeen oo ay heleen meeshii ani ku jira heleen markaas ay saan ay taabteen small markaas ani waa isku naxaybo marka tuugidii aan u maleeyay markaan arkay alxamdulillah aan dhahay ilaaha mahad celiyay marka waa istaagi waayay waa istaagay waan naxay waa istaagay waa dhacay waa istaagay markaas acuud bileystay markii aan dhinacan u soo baxay oo ii sheeg oo wiilkii kale oo banaanka ii sheeg ku cararay oo markaas asina gudaha u soo galo asoo markaas asina isku dhaxyaacsan marka wiilkii adina ma nooshahay u dhaanay waa noolahan dhaanay meeshan ku dhuntay ilaahana ibadbaadiyay ee ogow marka sidiyaan oo gargaar ii raadsanayo oo dadkii Soomaalida kale oo groupkan isku la jirnay gargaar ugu raadsanay sidiyaan loo gurmado ii sheeg oo dhaawiciin meesha laga qaado marka wadadayba ku nafbixeenba marka dhalinyaradii markii la qaaday oo la dilay ka dambo laamaha amniga meeyay ku guuleysteen inay soo qabtaan burcadii dilka geysatay maxay garbayn ku siiyeen laamaha amniga wax oo hadda oo war oo laga haayo malahan way imaadeen isla habeenkii imaadeen ii sheeg wixii meesha ka dhacay xabadihii iyo wixii baaritaan ku sameeyeen dukaankii ani markaas ani sharci oo wadanka ma heesti marka ani information-kan waa haayay laakiin ma bixin karin because fadhow dambe meesha case in la furaa la rabaa ani sidii aan ku aamusay wiilkii kala sharci heesto oo asina badbaaday asigiya wixii la wareegay marka sidii wax loogu qoray laakiin dad hadda laga sugaayay ma ahan inay wax qabtaan waa wax lagu yaqaan wadanka marka familkoodii iyo dadkii ay ka dhasheen iyo waalidiintoodii ma la xiriirteen oo ma wargelisan arinta isla markaa ay niyo wiilka horta aabihiisa anta joogay wiilka aabihiisa anta joogay ilaahu naxariistee wiilka yarka aabihiisa iyo ninkan odayga dhinteen waxa way labo oo ii sheeg walaalo waay labo kala kala dhashay ma fahantay marka marna adeer uu ahaa marna wiil iyo adeerkii wiil iyo adeerkii waay marna walaashiisa soo korisay war ninkan odayga walaashiisa isku hooyo ku aaba aan ninkan qabo oo ii sheeg aabihiisa qabo marka ninkan hooyadiis mar hore dhimatay marka asaas soo kori ayada soo korisay marka waxaad markala ii taabataa dhalinyaradii markii la dilay xaaladdu jawiga sidoo noqday intii la dilan ka hor jawiga sidoo ma dad wada wallahi jawiga niyo horta wax hadda animation aan ku soo koobi kar ma ahan dadka ii sheeg maxaa la haayay markii hore jawigu noo degnaa oo waan ii sheeg iska qaraxaysaneynay dad oo waxaan iska ahayn hadda wax ni imaanay dukaankaasna xilliga la furay dhexdan weligiisa lama gelin oo qof lagu ma dhaawicin waatan way qorneed waxa maanta anaga suugeynana ma ahayn farxadeena iska wadana saas ay tahay December time lagu jiraa wadanka waa laga warhayaa raadada waa iska heesanay oo jawigeena attention-keena uu taagnaa laakiin hadda xaaladana ani qabsanayso isma dhihinin ani wiilka ii sheeg waliba daqiiqadooyin ka hor isla hadlaynay oo anoo meesha taagan kor ka wada hadlaynay
marka asi xitaa ma ogeyn markii oo la shoot gareenayo markii la tooganayo asi ma ogeyn ayadoo bahashu ku dhacday uu ka war helay marka niyow ilaaha uu naxariisto walaalaheen waxa waay aadan ugu xumahay wallaahi meeshii xitaa inaan joogo way siin weysa dareenkayga goormaad ka soo tagtay marka meesha ka soo hajay ani niyow isla maalinkii meesha waan ka soo tagay habeenkii laakiin dukaanka seexday isla dukaankii aan seexday isla dukaankii dadkii hadiiba la qaaday ani dad laba qof kale ay imaaday isla dukaankii habeenkii seexday habeenkii indhaas ma saarin cabsiga ma ahana laakiin waxa waay dadkii ani aan wada shaqeynay meesha aan ku waayay marka damiirkay uu isiin waayay xitaa ina ani afkii biyo aan saaro ma fahamtay marka isla maalinkii kale aan ka soo habeenkii hadaan seexday maalinkii waan ka soo cararay gobolkaasi marka ii sheeg maxaa lahaay saas waa inuu Johannesburg hadda imaado gobolkii dhan aan ka soo tagay haye waka marka way ku suurtagal weysay meeshii dhalinyartii waqtigaad ku soo qaateen lagu dilay inaad ka sii shaqeyso ina ka sii shaqeeyo subaxii markaan soo kacay oo odayga subaxii dukaanka asaa furi jiray marka ani wiilka subaxii waxa waay gadaala ka soo kici jirnay marka subaxii marka aan soo kacay oo labadii qof dhinaciga aan ka waayay anigii la meesha taagan markaas aniga go'aan hoos ka xariiqday inaan meesha ka soo tago dhuxmadeedii inaan isaga soo tago igama ahayn dadkan dayac iyo dukaankaas oo markaas dad lagu dilay oo wali oo shaqaale aysan haysanin oo hantidii meesha taasho dayac igama ahayn laakiin ani qalbi ahaanteed ana dareemi karay ana arkay dadkaas markii la dilayay marka qalbigayga isiin waayay iyo damiirkayga inaan meesha sii joogo waka walaal aad u mahadsantahay waan kaaga mahadnaqayaa